Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso kusoo dhawaad qaybtii 11 ee sheekadii jariska xoorkii yaraay. qaybta 10aad sheekada waxay inoo joogtay qonyar ayaa mid walba oo yaryarkii ka mid ah baadhideed qabow oo baqdineed labada dhinac daatay markay arkeen masiibadan hortaagan. qaybta 11aad waxay ku bilaabmaysaa wax yar markay aamusnaayeen ayay waxay iska raadiyeen xogay dhiiranaan ah waxayna yiraahdeen mugdigii duufaanta dartii ayaanu jidka ka lunnay annaga oo aan waxba iska ogeyn ayaa waxa aragnay annaga oo halkan joogno. Naajuug oo carada labada indhood la gaduuteen baa hadalkii ku jaray oo yiri war qiyaamayntaasi ugu filan iminkanay hor socda ilaa ay reerkii codkii hanjabaada ahaa iyaga oo sii baqdin geliyay ayay hadal la'aan ku qaateen amarkii oo hor kaceen wadadii ilaa ay reerka iyaga oo iskiimowgana daba socdaan warna ku kogsan yahay raadiyoogi yaraay meesha ay joogaan iyo reerkuna way kala fogaayeen. marka goor fiid ah ayay soo gaareen reerkii markay wiilashii galeen boolka oo ay seexan rabeen ayuu intuu Naajuug albaabkii dusha kaga xiray kuna yiri haatan iyo wixii ka dambeeya halkan ayaad maxaabiis ku tihiin ilaa odayaasha reerku arrintiina ka fariistaan oo ay go'aan ka soo gaaraan. markaasoo dabadeed ilaaliyaal hubsita iridda horteeda ku amray inay ilaaliyaan saaxiibadiina iyaga oo dhibtii iyo halgankii ay maalintii soo galeen la tiicaya ayay kala daateen. hase ahaatee baqdin iyo walwal awgeed hurdu way ka soo dhici weysay. dooliyihii Siraaj isagu wuxuu isku hoolay raadiyowgii inuu ku diro gurmad garoonnada iyo dayuuradaha u dhow. hase ahaatee codadkii oo raadiyowga soo tabinayay waxay noqdeen kuwo aanu waxba uusan ka maqlin mana uusan quusan waanu isku dayay inuu ku guulaysto. isla goor waqtiga ah ayaa Cali arkay meel derbigii daloosha oo iskiimowga ilaaween inay awdaan. markaasuu Anwar u sheegay daloolkaas baan ka baxayaa oo waxaan soo basaasayaa waxay colka inoogu talinayaan ee isii suga. markaasuu dabadeed intuu daloolkii sidii bisada ka baxay ayuu xaggii ay iskiimowgu ku shiraayeen u kacay. iskiimowgii iyagu markaa waxay shir weyn oo Naajuug gadoomiye ka yahay ugu fadhiyeen arrintii wiilasha. Naajuug baa hadalka wata oo yiri wiilashan aan martigelinay ee aynu soo dhaweynay sida naxariista lehna aynu ugu way inugu xadgudbeen oo sirteeni bay inoo daba galeen. iminka iyo haatan haddaynu sidaa ku sii dayno oo aynu nolol kaga tagno way ina fashilin doonaan. markaasna ceeb ayaa dhici doonta oo qoladii markabka lahayd ayaa ogaan doonta in aynu markabkoodii xadnay. taasi waxay noqon doontaa in tuugnimo la inugu xiro oo xabsiga la inoo taxaabo oo kadib aynu sida xornimadeeni ku weyno. markaa maxay idinla tahay in aanu yeelno si aynu masiibada ayna soo food saartay ugu nabadgalno? raggii meesha fadhiyay oo dhan ayaa intii cara ka badatay ku dhawaaqay mar keli ah waa in ay geeri mutaan. gaalada yaryari dumarkii iyo carruurtii oo gadaashoodii taagnaana way ka daba dhawaaqeen waxayna dhaheen waa in la laayaa malaaciinta. intaa waxaas oo dhammi dhacayaan Cali mugdiga ayuu ku dhuumanayay oo intuu gidaar dhigta saaray ayuu dhegaysanayay. markuu go'aankoodii maqlaayo cabsi la gariiray hase yeeshee intuu calool adeegay ayuu xaggii saaxiibadii u soo noqday si uu go'aankii ugu sheego. dooliyihii Siraaj isagu raadiyowgii ayuu ilaa hadda ku howlanaa si oo meel ula hadlo isaga oo yaryarkiina hareeraha fadhiyaan wejigiisana ku eegaya indho naxsan. mar keli ah ayuunbuu qayliyey sidii wuxuu dad u arkayo oo la hadlaayo wuxuuna yidhi halkan baanu joognaa iyo erayo la mid ah halow waxaan ahay dooliya Siraaj waxaanila jooga Anwar Cali iyo Jawaad halkan baanu joognaa. intaas waxaa noogu dhammaaday qaybtii 11aad ee sheekadii jariska xoorkii yaraay.